بسم الله الرحمن الرحيم وأنيقو فاطمة علي iyo barnaamijkeeni taxanaha caruurta runtii maanta waxaan ii wadaa sheeko aad u cajiib ah hala soo wada dhawaado sheekadan waxaa noogu sheekeeyay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay rasuulkeeni maalin oo meel cidlo ah nin ayaa socday kaligiisaa socday meesha cidlada marka wax yar kadib wuxuu dareemay roob inuu cirka dhan isqabsado roob di'i rabo wax yar kadib wuxuu arkay haddana hadal sood buu maqlay dhawaaquu maqlay wuu yaabay wuu fiiriyey geesuu fiiriyey qof joogana male marka dambe wuxuu maqlay soodka wuxuu arkay inuu ka imaanayo kor daruurta agteedii oo la dhahayo roobka ha ku di'in waxay ku da'daa beerta hebel waa qof saasoo kale la dhahay masalan beertii maxamed cali ninkii wuu yaabay qof kale meesha ma joogo wax yar kadib roob daruurtii wayba socotay bas wuu kadaba meeshu socdaa wuu yaaban yahay asagii wax yar kadib wuxuu arkay roob baa haddana cirkaa isqabsaday roobkiyaa da'ay roobkii markuu da'ay meel buur ah ayuu roobkii ku da'ay roobkiisi u da'ayay asagii wuu yaaban yahay waxaa yacni roobkii markii dambe waxaa la yiri roobkiisi u da'ayay ayay waxay ku aruurtay buurta gadaashiisa meel waxaa jirta god ah meeshaas biyihii badanaa ay roobkii fadhisteen wax yar kadib wuxuu arkay biyihiiyo dhinac kale u socdaan bas biyihiiyo haddana daba raacay roobkii wuu istaagay biyihii wuxuu arkay meel oo jeex biyihiiyo socdaan wuu kasoo daba baxay biyihiiyo daba raacay wuu socday biyihii intay ka baxaan haddana xaggee u leexdaan ninkii biyuhu daba socdaa wax yar kadib markuu wuxuu arkay meel beer ah nin ag taagan oo wato badiilkiisii oo biyihii markuu imaaday intuu ku farxay ayuu meeshan u leexiyey biyihii beerta kale u leexiyey beertii maxay ahayd badiilkiisii qodqoday ninkii wuu yaaban yahay markii dambe wuu ku yiri walaalow yaab adiga magacaa markaasuu yiri aniga waxaa la dhahaa hebel subxaan allah waa the same waa magacii uu maqlaayay markaasuu yiri oo maxaa lagu dhahaa miyaa magacaasaa lagu dhahaa markaasuu yiri haye oo beertan quruxda badan yaa iskale markaasuu yiri anaa iskale markaasuu yiri ninkiyaa markaa wuu yaabay wuxuu yiri maxaad ii weydiinaysaa magacayga wuxuu yiri subxaan allah wuxuu yiri anoo keligay meel iska socdo waxaan maqlay yiri daruurtii oo lala hadlayo la dhahayo ha ku di'in biyaha waxaa ku da'daa beertaas marka wuxuu yiri walaalow maxaad samaysaa wuxuu yiri walaalow aniga waxaan sameeyay yiri beerteedii markii aan miraha yani waqti markay dhamaato waxaan sameeyaa miraha iyo waxaan qaataa waan soo iibiyaa markaan soo iibiyo lacagtii waa soo qaadaa 3 meel aan kala qaybiyaa meel waxaan sameeyay yiri waa sadaqaystaa dadka masaakiintan siiyaa qofkii wax u baahanaa siiyaa qayb weeyaan qaybta kalena waa soo qaadaa aniga iyo ciyaalkayga iyo reerkaygaan ku bishaa qaybta saddexaadna waxaan sameeyaa beertan ku celiyaa wixii beerta markaa u baahan tahay ayaan sameeyaa markaa saddexdaas arrinaan sameeyaa inaan xoolahaygan beerta ka soo baxdo inaan 1 2 3 qayb u kala qaybiyo marka يعني waxaan ka faa'iideysanaynaa sheekadan yani sadaqada oo faa'iido leedahay iyo ilaahayna in allaha fi auni alabdi maadaama alabdi fi auni aqihi intaad qofka saacideysid qofka muslimka ilaahayna adigana arimahaagu ku sahlaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh